Assalaamu calaykum. Softwareada aynu isticmaalno sida maalinlaha badankoogu ma aha wada free. Qayb badan oo ka mid a lacag ayaa laga soo bixiyaa. Markaad u baahan tahay inaad isticmaasho softwarekaasi, lacag ayaad u baahan tahay inaad softwarekaasi aad ka soo bixiso. Inta ugu badan softwareada aynu isticmaalno inagu hadday yihiin kuwa wax lagu qoro, hadday yihiin kuwa wax lagula soo dego, hadday yihiin kuwa wax lagu hagaajiyo ama fotooyinka ama kuwa lagu isticmaalo sawirada, hadday yihiin kuwa fiidiyoyada lagu isticmaalo dhammaantood software kasta inkastoo jiraan kuwa bilaasha oo si free aad ku isticmaali karto, haddana kuwa fara badan oo waxaa jira inagu aynu isticmaalno laakiinse u baahan in lacag laga soo bixiyo. Softwaradaasi ama programyadaasi waxaa ka mid a kan imika hortiina ka muuqda. Kani waxaa la dhahdaa internet download manager. Waxaa loo isticmaalaa markaad rabto inaad internetka aad wax kala soo degto ama markaad wax rabto inaad internetka aad ka soo download garayso. Softwareada ugu caansan ee loo isticmaalo ayuu ka mid yahay internet download managerku. Sida hortiida idinka muuqta, softwarekan ama programkan wuxuu u dabaaldegayaa 20 jiradii ama 20 guuradiisii ayuu u dabaaldegayaa. Saad halkaa ka arkayso 200,000 in ka badan oo isticmaalayaal ah ayaa sanad walba ama mar walba iibsada softwarekan oo isticmaala. Haddaba ujeedkeenu waxa uu yahay softwareada aynu isticmaalayno inagu badankeena ama badankood softwareada aynu isticmaalayno kama soo bixino wax lacag ah. Sida halkan idinka muuqata softwarekan la yidhaahdo internet download manager, haddaad u baahan tahay inaad isticmaasho haddaad rabto inaad isticmaasho ood soo download garaynayso ama aad kombyutarkaaga aad ku shubanayso, waxaad u baahan tahay softwarekan inaad lacag ka soo bixiso. Sida halkan ka muuqata softwarekan wuxuu leeyahay buy ayuu leeyahay ama buy now ayuu halkan ku leeyahay, iibse hadda ayuu ku leeyahay. Halkan kale waxa yaala option kale, optionkan wuxuu leeyahay ma rabtaa inaad isticmaasho softwarekan waqti yaroo kooban, bil ama toddobaad ma rabtaa inaad isticmaasho. Ujeedkaygu haddaba wuxuu yahay software kasta oo la isticmaalayo looma samayn in qofku si bilaash u isticmaalo, laakiin dadka softwareadan samaynaya waxay uga gol leeyihiin inay lacag ka sameeyaan. Haddaba inagu markaynu isticmaalayno softwareada badankoogu wax lacaga kama soo bixino. Waxaynu isticmaalnaa crack ayaynu isticmaalnaa ama softwareada waynu crack garaynaa. Tusaale ahaan kani waxa weeyaan Microsoft Office-kii weeyaan. Haddaad u fiirsato folderka gudihiisa waxa ku dhex jira softwarekii iyo waxa ku jira crackiisii ayaa ku jira. Haddaba muuqaalkeenu maanta waxa uu daaran yahay waa maxay cracku. Cracku muxuu soo kordhinayaa softwarekii lasoo iibinayey marka aad crack garayso, iyadoo softwarekan haddii aad qof kula mida uu soo iibsaday uu ka soo bixinayo lacag fara badan. Sida tusaale ahaan IDM-kan oo kale, haddaad u timaado halkan oo kale ama page-kan kale laga soo diiwaan gashado markaad rabto softwarekan IDM-ka inaad iibsato, wuxuu ku siinayaa horta softwarekan markaad la soo degto 30 cisho ood ku isticmaali karto si free trial ama aad si bilaash aad ku isticmaali karto. Haddaba softwarekan halkii application marka hal computer lagu isticmaalayo wuxuu u baahan yahay inaad lacagtan ka soo bixiso. Haddii aad u baahan tahay inaad u isticmaasho si lifetime ah, aanad sanad iyo waxa aanad u baahnin, laakiin si ilaa abadiyan aad rabto inaad u isticmaasho, wuxuu u baahan yahay inaad ka soo bixiso lacagta halkan ku qoran. Haddaba softwareadan lacagta lagu soo wada iibsanayo adigu sidee bilaash aad ugu isticmaashaa? Waay say macquul ku tahay softwarekii lacagta lagu iibinayey inaad adigu si bilaash aad ku isticmaasho? Taasi waxaa las idhaahdaa ama waxa suuro gelinaya in softwarekan la crack gareeyey. Ujeedkaygu haddaba wuxuu yahay sidee wax loo crack gareeya. Markaynu wax crack garaynayno maxaa la isticmaalaa? Horta guud ahaan softwareada marka la rabo in dabeecaddooda wax laga bedelo iyo applicationka markaad u baahantay inaad dabeecaddiisa aad wax ka bedesho, xirfadaha lagu barto waxaa loo yaqaanaa reverse engineering ayaa loo yaqaanaa. Haddaba maanta waxaan kula wadaagayaa bal hadda reverse engineeringkaasi waxa uu yahay iyo software ama program sida dabeecaddiisa wax looga bedelo. Tusaale ahaan iminka softwarekan IDM-ka markaynu isticmaalayno ama Office-ka markaynu isticmaalayno, isagoo oo softwarekan ama applicationkan uu lacagina weydiinayey ayaa markaaynu crack garayno aanu lacagina weydiinayn. Marka softwareku qaabkuu shaqaynayey, qaabkii u design garaysnaa ee loo soo habeeyey ayaynu wax ka bedelaynaa. Taasi ayaa waxaa loo yaqaanaa cracking ayaa loo yaqaanaa. Xirfadaha noocaasina waxaa lagu bartaa in fara badan reverse engineering ayaa lagu bartaa. Marka muuqaalkayga maanta waxaan kula wadaagayaa bal hadda sida softwareada ama applicationada loogu sameeyo reverse engineer, sida loogu sameeyo cracking, si loogu sameeyo sida dabeecaddooda wax looga bedelo, sidii ay u shaqaynayeen si aan ahayn qaabka loogu bedelo. Waay haddaba si aan idinla wadaago qaabka loo sameeyo crackingka. Cracking markaan leeyahay waxaan ka wadnaa software ama program la sameeyey oo qaab loogu talagalay. For example, sida tusaalaha imika hore aan idinku soo tusay IDM-ka oo kale waxaa loogu talagalay qofkii isticmaalayay
inuu iibsado laakiin marka cracking lagu sameeyo adigoon waxba iibsan baad isticmaalaysaa marka softwareka sidii loogu talagalay ayaa wax laga bedelay waa la karaagareeyey marka la leeyahay softwareki ayaa qaabkuu shaqaynaya wax laga bedelay micnaheedu waxa weeyaan waa la karaagareeyey weeyaan waayo si aan haddaba idin tuso xirfadaha noocan qaabka loo sameeyo xirfadaha qaabkan ama waxyaabaha la karaagaraynayo qaababka loo sameeyo ayaa waxaan sameeyey 2 tusaale yar oo ka kooban tusaalahan yar waxaan idinku tusayaa program yar oo si yaroo fudud u shaqaynaya aad u kooban programkan yar qaabka uu shaqaynaya waxa weeye tusaale ahaan imika haddaan idin tuso qaabka uu shaqaynaya programkan basbrok ayaa la idhahdaa intan haddaan idhaahdo wuxuu i leeyahay baaswiirka geli programkan wuxuu iga rabaa inaan geliyo baaswiirkiisa saxda haddaan idhaahdo 890 intan haddaan idhaahdo wuxuu leeyahay wrong baaswiir ayuu leeyahay mar labaad haddaan ku celiyo oon idhaahdo bal hadda baaswiir kale ku eeg 2737 ku eeg sidoo kale wuxuu leeyahay wrong baaswiir marka baaswiirkiisa saxdii waa maxay waxaan gelinayaa baaswiirkiisa saxda waxa weeyaan 2237 weeyaan baaswiirka saxdiisa ama baaswiirkiisa saxdii waa 2237 weeyaan iminka markaan geliyo 2237 wuxuu leeyahay baaswiir found ayuu leeyahay programkan waa programkan kooban ee qaabkaas u shaqaynaya programkan waan sii koobi gareeyey saynu hadhow toona markaynu cracking ka samayno waxyaabaha soo baxayaynu si fiican ugu aragno kanina waa la mid haddaan isagana soo rangareeyo programka yaroo koobanna isku qaab ayay u shaqaynayaan waxaan rabaa kani inaan ku sameeyo labada waxaan rabaa inaan ku sameeyo kan inaan ku sameeyo crackingka ayaan rabaa kan markaan crackingka ku sameeyo hadhow toole aynu safe garayno outputka soo bixi doona ayaan waxaan rabaa kanna originalkiisa inaynu la barbar dhigno marka labadan isku qaab ayay u shaqaynayaan saad arkaysaan waaye maxaan u isticmaalayaa haddaba crackingkan waxaan u isticmaalayaa software la yidhaahdo IDA ama ida la yidhaahdo isagoo free isagoo professionalaba waa jiraa laakiin aan waxaan isticmaalayaa kii freega gaar ahaan lagu isticmaalaya linuxka kaas ayaan soo kicinaya waxaan leeyahay IDA 64 ayaan leeyahay waa program yar oo kooban oo loo yaqaano IDA oo ku dhex jira folderkiisa ayuu ku dhex jira waaye waxaan leeyahay imika new ayaan soo leeyahay iyo software ayaan leeyahay programkii yar ee koobnaa ee magaciisa la odhanayay basbrok la odhanayay programkii yar ee koobnaa ee basbrok la odhanayay iyo software ayaan leeyahay kan ayaa waxaan ku dhufanayaa inter ayaan leeyahay deetana yes halkan ayaan leeyahay okay ayaan leeyahay programkii waa kan uu soo baxay intaanan programka aanan furin waxaan rabaa marka hore bal hadda koodhka programkan uu ku samaysan yahay inaan idinla wadaago koodhka uu ku samaysan yahayna waa kan waa koor yaroo aad u fudud weeyaan oo c program weeyaan wuxuu leeyahay marka ugu horeysa markaynu soo rangarayno inter baaswiir ayuu leeyahay marka baaswiirkaasi haddii uu sax noqdo wuxuu u yeedhayaa functionkan kale ayuu u yeedhayaa wuxuu leeyahay markaa baaswiirka aad gelisay haddii uu sax yahay baaswiir phone ayuu leeyahay haddaad geliso baaswiir khaldanna wuxuu odhan doonaa baaswiirkaad gelisay waa khaldan yahay marka baaswiirka saxdii waa maxay waxa weeyaan 2337 weeyaan haddii kiiguu la mid yahay 2337 waxaa soo daabacdaa success haddii kale waxaad tidhaahdaa failde weeyaan waa programka yar aad qaabkaas u kooban weeyaan waan iska xidhayaa qaybtan faylkan yar waan iska xidhayaa siida waxaan leeyahay inter ayaan leeyahay markaan iska xidho siida waxaan soo geliyey waa kan mar hore ayaan soo geliyey bas programkii waa kan qaabka uu soo baxaya waxa weeyaan assembly languagekii weeyaan assembly languagekii guud ahaan instructionkiisii oo dhan dhammaantood waa kan qaabka uu shaqaynayo instructionka koowaad wuxuu leeyahay programka marka lasoo rangareeyo interbas wuxuu yidhaahdo 2 option midkood ayuu leeyahay haddii uu success yahay wuxuu noo soo daabacayaa instructionkan haddii uu yahay fail ama baaswiirkaad geliso khalad yahayna wuxuu soo daabacayaa instructionkan marka waxaan leeyahay laynka ama instructionka samaynaya comparisonku waa laynkan weeyaan waa kan ay ku qoran tahay GNS weeyaan kan ayaan rabaa inaan wax ka bedelo waxaan ku dhufanayaa kan halkan yar ayaan ku dhufanayaa deetan waxaan leeyahay debugger waxaan ka dooranayaa breakpoint deetan waxaan leeyahay add breakpoint markaan idhaahdo programkayga waxaan ku samaynayaa running programka markaan rangareeyo u fiirso terminaalkeena waxa ka soo baxa terminaalkeena bal si fiican isha ugu hay waxa ka soo baxa terminaalkii aynu programka ku rangaraynay waa kankii aynu programka ku rangaraynay wuxuu leeyahay interbasul ayuu leeyahay waxaan gelinayaa 7788 ayaan gelinayaa xasuusnow 7788 maaha baaswirkii saxda ah kaa markaan geliyo dib ayuu ugu soo celinayaa programkeenii wuxuu leeyahay GNS-kii waa kan okay programka instructionka kii ku xigay ayaa loo wareegayaa deet halkan ayaan ku dhufanayaa
linekan aan ku dhufanaya waay maxaan ugu dhufanaya instructionkani waxa weeyaan ka comparison-ka samaynaya weeyaan comparison maxay ayuu samaynayaa waxyaabaha aynu terminalkiina ka gelino passwordka aynu gelino ayaa waxa uu isbarbardhig ku samaynayaa 2337kii markaad soo geliso 12345 wuxuu leeyahay 237 malamid ma yahay hadduu la mid noqdo wuxuu samaynayaa success haddaa uu la mid noqon waayana wuxuu soo daabacayaa instructionkan kale ee fiilka ayuu soo daabacay marka kani waxa weeyaan ka samaynaya comparison isku barbardhigga ka samaynaya weeyaan kan ayaan leeyahay edit waxaan dooranayaa halkan ay ku qoran tahay baan dooranayaa batch program deeto waxaan leeyahay assemble ayaan leeyahay assemble markaan idhaahdo halkan yar ayaan wax ka bedelayaa deeto waxaan leeyahay js keliya taygudda ayaan leeyahay waxyaabaha yihiin jsedkan iyo jnskan insha allah waxaan kuga hadli doonaa assembly languageka hadduu ilaahay idhaahdo waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay deeta halkan waxaan leeyahay waan iska soo xidhaya kan deeta waxaan samaynaya debuggerkaygaan ku noqonayaa waxaan samaynaya stop off ayaan samaynaya maxaa iska bedelay programkii lasoo rangareeyey waxba iskama bedelin weli waayahay dib igu soo noqo debuggerka ayaan kusoo noqonaya haddana waxaan leeyahay stop off u fiirsa hadda maxaa iska bedelay programkii maxaa iska bedelay laynoo soo rangareeyey aynu gelinay 778 weli laynooma soo saarin password phone iyo password wrong password labada midkood midnaba weli laynooma soo saarin okay instruction kaaka ku xiga wareeg ayaan leeyahay stop off ayaan leeyahay stop off markaan idhaahdo maxaa iska bedela halkan maxaa la soo saaray waxa la soo saaray halkii aynu u soconay oo ah password phone ayaa la soo saaray waay password phone ayaa la soo saaray programkii waxaynu ku samaynay imika cracking ayaynu ku samaynay qaabkuu shaqaynaya maahine qaab kale ayaynu u bedelnay qaabkuu shaqaynaya waxay ahayd passwordkiisa saxda haddii la geliyo keliya inuu soo saaro password phone laakiin isagoo passwordkii saxda aan la gelin ayuu imika soo saarayaa password phone programkii wax baynu ka bedelnay waxaan rabaa intaas aynu samaynay inaynu inoo safe gareeyo ayaan rabaa inaan safe gareeyo ayaan rabaa deetan waxaan samaynayaa programka iga soo xidhayaan leeyahay ama debuggerkan leeyahay ama continue process ayaan ku dhufanayaa continue process markaan idhaahdo edit ayaan leeyahay batch program apply baan leeyahay deeto waxaad samaysaa baan leeyahay create backup ayaan leeyahay backupii same ayaan leeyahay deeto okay ayaan leeyahay backupna waa lay sameeyey programka waxaan ku samaynayaa exit ku same ayaan leeyahay imika haddaba exit iga soo xidh baan leeyahay programkan IDA-ga bal u fiirso terminalkeenan waxyaabaha dhacay bal u fiirsa hadda terminalkeena ayaan dib ugu soo noqonayaa ls ayaan leeyahay programkiina ay backupka ahaa aynu samaynay waka waxaan leeyahay haddaba programkii dib ugu noqo ayaan leeyahay bas program ayuu ahaa haddaad xasuusataan inter haddaan idhahdo imika waxaan gelinayaa 4455 ayaan gelinayaa inter markaan idhahdo bal u fiirsa hadda bal wuxuu leeyahay password phone ayuu leeyahay password phone ayuu leeyahay hadda passwordkiisii saxda ahaana maaha passwordkiisii saxda ahaa waa anigii koorkeedii la wadaagay waa 2337 weeyaan kii mid originala waa aniga idiin sheegayay isagoo originala ayaan horey u sameeyey ayay ahayd waan usii koobigareeyey bal hadda ka originalka ayaan soo rangaraynayaa isku qaab weeyaan bas program iyo ka originalkii kan haddaan geliyo 445 isagu muxuu leeyahay wuxuu leeyahay wrong password maxaa dhacay programkan wax crackna kumaynaa samayn laakiin waxaynu crack ku samaynay programkaas crack markaan leeyahay waxaan ka wadnaa waxaynu programka ka bedelnay qaabkuu shaqaynayey oo waxaynu u bedelnay qaab kale xirfadda noocan ayaa waxa loo yaqaanaa reverse engineering ayaa loo yaqaanaa haddii xirfadda noocana aad rabtaan inaad barataan insha allah waxaan dila wadaagayaa iyaga oo basic ah ilaa iyo aynu samayno programyada waaweyn aynu wax ka bedelno haddaba si aad muuqaalada soo sunno ama cashirada si aynu u samayno ama aynu casharada aan dila wadaago waxaad igula wadaagtaa barteenan qaybta commentiga yes waan rabnaa sidoo kale muuqaalkan haddii aad aragto ood wax ka faa'iido sheer garee like saar wixii commenti ama fikradaad haysana qaybta commentiga ii soo dhig aad baan idiin salaamaya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu